wararkii ugu waaweynaa maanta iyo maxaa ka cusub Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ku wajahan Raas Kaambooni iyo hubkii ugu waaweynaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay lahayd oo lagu daldalayo magaalada Raas Kaambooni haddii aad aragtid noocyada hubkan qalbiga ayaa ku qarxaya inta uu leeyahay yaa lagu la dagaalami doonaa Ra'iisul Wasaare Xamse oo ujeedadiisu maxay tahay halkan ayaa kugu faahfaahin doonaa sidoo kale mucaaradka Soomaaliya si wadajir ah marka laga reebo farmaajo ay uga soo horjeesteen qorshaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo doorashadiisa waxa ay sheegeen in ay tahay xaraan qadcan ah oo aan heshiis lagu noqon karinin waxa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wado iyaga oo sheegay in ummadda Soomaaliyeed ay ogeysiinayaan in ay ka soo horjeedaan dhanka kale magaalada Doolow waxa ka jirta xaalad qas ah oo nabad darro keeni karta taasoo u dhaxaysa isla maamulka Jubbaland ciidamadiisa kadib markii mid ka mid ah ciidamadaasi uu damcay inuu hubka ka dhigo askartii la shaqeynaysay ayna ka gadoodeen qodobadaasi ayaan barnaamijka kugu faahfaahin doonaa ee saaxiib fadlan sheergare barnaamijkan saaxiibada u gudbi adigana follow dheh markastana lagu tixino aynu ku bilowno dowladda federaalka ee Soomaaliya diyaaradihii ay u diriideysay Raas Kaambooni ma aysan istaagin saacadba ka dambaysa waa ay u duulayaan waliba waxa ay wadaan ciidamo ka tira badan kuwa ka badan asbuuciyada dhaweeyta kuwii halkaas loo gurgurayay waxaa ka sii daran waxaa halkaasi lagu daabulayaa noocyadii hubka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya haysta ugu waaweynaa lama garanayo cidda lagu weerari doono lama garanayo in ciidamada difaac ahaan ay u isticmaali doonaan laakiin hubkii Soomaaliya yaalay nooc ugu waaweynaa Raas Kaambooni ayaa loo rarayaa shalay iyo saaka inta ka dhaxaysa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa in halkaasi uu qorsheynayo inuu gaaro waqtiyada soo aadan uuna la hadlo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya isaga oo kala hadli doona ciidamada in ay qabtaan shaqada loo igmaday waxaa kaloo Ra'iisul Wasaaraha ujeedada ugu weyn ee u socda ay tahay ciidamada ka soo goostay waxa weeyaan Jubbaland oo uu rabo in uu si gooni ah ula hadlo qalbiga u dejiyo una sheego in dowladda federaalka ee Soomaaliya garab taagan tahay ay og tahay registering loo sameynayo xuquuqdoodana loo bilaabayo maadaama ay ciidamadan asaga iyo hadalkiisa ay ku yimaadeen iyo sidoo kale saaxiibo uu ku leeyahay federaalka oo warbixintiisa gudbiyo ku Jubbaland u gudbiyay haatan asaga ayaa la fariisan doona